kulankan oo ahaa xog waraysi u dhaxeeyay maayirka magaalada Boorama Maxamed Axmed Warsame iyo gudiyada afarta waaxood ee magaalada Boorama ayaa waxa soo qaban qaabiyay Co Media Foundation kaasi oo lagaga hadlayay waxqabadkii sanadka dhamaaday ee 2022 dakhliga soo xorooday sanadka iyo mashaariicda u qorshaysan dawladda hoose sanadka soo socda 2022 waa sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame oo ugu horeyn sharaxay waxqabadka dawladda hoose hawshan waxa weeyaan hawl kamida qolada Co Media Foundation leeyahay ay wado waana hawsha leeyahay is-xog waraysiga bulshada iyo dawladda hoose saddex qodob marka ugu muhiimsan waa wixii dawladda hoose ay qabatay sanadka maanta ay nooga hadhay 10 cisho dhamaanaya waxa kale oo doonaynaa dakhligii soo galay dawladda hoose sanadkaas iyo dakhliga aan filayno sanadka dambe iyo mashaariicda noo qorshaysan dawladda anagu waxaan ku soo beernay bishii 6 baan xilka la wareegnay 5 bilood aan joognay wax naga horeeyo soo socdo qabsoomay wuu jira laakiin cidii qabatay baa hawsha lahayd waxyaabaha qabsoomay waxa kamida waxaad ogtihiin in hawshii master plan ku socoto waxa jira dib u dhis garoonka kubadda cagta ah oo dawladda hoose samaysay in kawaankii xoolaha lagu qalayay oo dhibaato fara badan ka jirtay kawaanka dib u dhis baan ku sameynay waxaan sameynay koox nadaafadda oo habeenkii wadooyinka fiiqa waxaan sameynay dhisidda kaydka dhiiga marka dadka inagu soo caawiyay markay inoo keeneen qalabkii waxa loo baahday meeshii la dhigi lahaa si degdeg ah waxaan u qaadanay in kaydka dhiiga meeshii la dhigi lahaa aan dhisno dawladda hoose ay dhistay muddo 20 cisho lagu dhisay waxaan dhisnay hal iskuul oo ah iskuulka Faaraxyood waxaan dhisnay 2 MCH ka ku yaala Tuur Qaylo iyo MCH Tulli ku yaala waxaan bixinay qandaraasyada 2 wado oo laamiya oo midna tahay kiiloomitir iyo 200 mitir oo ka soo bilaabayso kaalinta Almadiina oo ku soo dhamaanayso ilaa halka Harawo Siciida Gooje ka soo wareegaysa 1 kiiloomitir oo laamiyo kalena waxaan siinay oo tagaysa Dhamuug iyadana waan bixinay waxa kale oo imika lacagteedii aanu haynaa 2 kiiloomitir iyo 200 mitir oo dawladda hoose bixinayso oo noqonaysa wadada indhaha ee magaalada laga soo galiyo hotel soo ka soo bilaabaysa ilaa dhigta soo gaadhaysa wadadan kor socota ka soo bilaabaysa wadadan Harawo ku soo dhacaysa waa 2 kiiloomitir taana lacagteedii waan haynaa dawladda hoose ana dhisaysa marka wadooyinkaasi qaarkood way bilaabeen qaarna way bilaabmi doonaan waqti horeyna bilaabmaan bay ahayd sababtuna waxa weeyaan gaamurkii oo dalka ka kala go'an bay u bilaabmi waayeen waxa jira koobkii dhalinyarada kubadda cagta loo qabtay oo dawladda hoose ku guuleysatay waxaan markaa anagu ka caawinay sidii live loogu daawan lahaa taasi sportigan dhakhtarka weyn maadaama sanadkan xanuunkii COVID-19 uu jiray waxaan ka taageernay oxygen-ta sidii loo heli lahaa waxaanu bixinay biximihii deymihii taagnaa ee shaqaalihii 3 bilood ee mushaarka dawladda hoose ku lahaa shidaaladii kharashaadkii deyntaasi waan bixinay waxaan sameynay xafiiskan dawladda hoose dhexdeeda ku yaal oo hortayo la dumiyay imika gabagabu ku dhow yahay inta kadib gudiyada ka socday afarta waaxood ee magaalada Boorama ayaa su'aaladan u ah horumarinta degmada weydiiyay duqa degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame ugu dambeyn kulankani ayaa labada dhinacba isku raaceen sidii wadajir looga hawlgali lahaa bilicda iyo horumarinta magaalada Boorama wa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saha warbaahinta qaranka Soomaaliland